madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray fariisinta hore ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida Tukaraq waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida Tukaraq. mudana madaxweyne ku soo dhawow. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wufuudda uu hogaaminayo ayaa kormeeray fariisinta hore ee ciidanka naftood horeyaasha ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiida Tukaraq Sool. mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka warramay qiimaha ciidamada qaranku ay ugu fadhiyaan jiritaanka Soomaaliland iyo sugidda ammaanka. hambalyo iyo duco iyo kalsooni aan ka sida Soomaaliland ugu gudboono shaqada la isku raacsan yahay oo laga yaabo inay dheef badan lahayn laakiin karaamo iyo ixtiraam iyo duco loo hayo bini'aadmiga wuxuu hela karaama ugu weyn halka ugu karaamo weyn ee ummaddu isku raacsan tahay hadda ummadahoo dhan ta Maraykan ta Shiina ta Soomaaliland iyo tuwaliba waxa weeye ciidamada qaranka waayo ciidamada qaranka waa astaanta qaranka marka waxa weeye ciidanku awoodii qaranku sidaa garaado kasta ha ahaadee awooddaana waa wada leeyahay ilaa jaanka u sarreeya ilaa dabla halkaa joogto waxaad ku tahay calankii awoodii hawshaa gashaan ha ku caloliyoobina haddaad mararka qaarkood aragtaan guryihiina iyo dadkiinoo dalacan ha ka caloliyoobina kuwa samaha aagalaysaan iyo nafta huraysaan iyo dalka waxa u qabanaysaan ilaahay meel kale xisaabtaad ka siinaya ubadkooda ka siinaya oryahooda ka siinaya caafimaadkeeda ka siinaya ifi aakhiradeeda ka siinaya markaasoo soo gootaan marka dhibta qabtaan iyo dheefyaraanta iyo hawlaha jira marnaba iyo shaydaanku iduusus laakiin carruurta iskuulada waa qaaliya carruurta ciidamada xagga hore uga dhigdaash waa ra'yi guntan oo laga doono golayaasha xuquuqda sirta ilaahay dhaw waxaan idinku ducaynaynaa oo idinku hambalyeynaa oo idinku kalsoonahay inaa idinkoo nabad doonaya dalkii daafacaysaan. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu iftiimiyay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay inay nabad kula noolaato dalalka dariska ah. horta waxaanu nahay ciidan nabadoon oo aan cidda ku duulay ee dalkiisu ilaashanaya oo wixii ku soo xadgudba iyo wixii fidqaada ka wada qabanaya waxaanu nahay ciidan aan cidda weerar ku ahayn waxaanu nahay ciidan nabad soo waday intii uu jiray ilaa maanta la aasaasay oo dadkana kala ilaalinaya dalkana ilaalinaya walaalada iska soo jeedo reer Puntland weerar kuma nihin ma nabcin waan nabad gelinaynaa iyagana inta leeg baan ka rabnaa iyagana ilaahay inuu galasiyaabaan ka rajeynaya waayo soo baahan sabab kale oo dhimaanta wax hadal lagu dhamayn karo oo geed hoostiisa lagu dhamayn karo waxay la tahay waa khalday ninka weerar ku galaya. madaxweyne Biixi waxa uu yiri wixii gardarrada difaaca lagu yimaado ilaahay inuu ugu gargaaray inuu istaafaco waayo nin qori kula soo cararaya deemaa barka laakiin inagu waxayna doonada ku dhamaysanayna dagaal la uma socono dalka iyaga dhexdiisa aan uga haysataan waa nagu hor joogsateen waa idin fadhina wali xabada ku darsaadaha naga daayaan leeyahay farisa wadarna waa taaqwa dadka deegaanka walaaltinimo iyo wada tashi iyo Soomaaliland oo saan wadna. wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo saraakiisha sare ee ciidamada militariga Soomaaliland ee jiida hore ee Tukaraq ku sugan ayaa madaxweynaha uga warbixiyay guulaha ciidanka qaranku ku talaabsaday iyo qorshaha horumarkooda ku tacalluqa. nimanka mar waa cuqaal oo hadaanay dulqaad iyo maxaan ku raahdaa iyo karti iyo aanay muujin shacabka ay dadka la joogaan inay dadkooda yihiin nabadda iyo calamada qoyan oo inagu soo dhaweynayo kumaynu soo mareen intaynu soo maray waa waxay sii xaadeen oo wadda ay sii xaadeen oo iyagu kasii shaqeeyeen wey iyagana aad baan uga mahadnaqaynaa oo nugu bogaadinaya waa rag aaminsan waxay meesha u joogaan mas-uuliyadda saaran. bishii koowaad baa ciidanku degay dhowr dagaal baa ku dhacay dhowrkii dagaalna guul weyn bay ka soo hoyeen ciidanku uu garanayaa wuxuu halkan u joogo inay tahay waajibaadkiisa ka mid ah oo ay ummadda Soomaaliland ku leedahay inuu fulinayo. mudan madaxweyne adigoo ciidamada soo maray wax weynna ka yaqaana aad baan kugu mahadinaynaa intii aad joogtay sidii wanaagsaneed ciidanka u taakulinaysay iyo si aad mar kastaba niyada ugu hayso. mudan madaxweyne ciidanka qaranku
xagga dagaalkoo keliya maaha waa ciidan bulshada u la joogo dhaqan wanaag